سيجارة وحاو امتحانا ريبو ساسو وحبضا نوا سميسين راشين باد كنتين dadkii badanka waa dhoofiseen dadka badanna waa soo socdaan hadda hoolka sala ii sheegay ilaa 1000 baa ku jira waana ku soo wareegnay ilaa 4000 iyo googo waa maaragtay waa la safriyay dad badan baa ka qayb qaatay tujaarta ku jirta dadweynaha ku jira hay'ado waxbay kaga jiraan hameermeeriyaan dadka laakiin waxbay kaga jiraan waxa weeye hay'ada ugu fiican oo horseedka ka ana waa goolis أو دعينا صدح بقول بيبلغنا بري خلاص dadkan iga dambeeya way rafaadsan yihiin reebo saaso xoolihiina haddaad min bixinin oo dadka meesha dinka dareer wallaahi billaahi inaad dinku nabadgelin maga reebo saaso dadka haddaad ninkas dareerinin meesha oo nin si degdega u dhoofin mar waxaad haysataan mukayafaad ku jirtaan wallaahi billaahi sunaami baad halis u tihiin oo tijaaradiinna halis waxay u tahay inay badda degto oo dab inay qabsado haddaad nin si degdega dadka meesha uga saarin gobolada soo hadhayo Puntland idinkana xil gaar ah in saaran waxa kale oo xil gaar ah saaran yahay Soomaalida goboladoo dhan in dadka xeebta laga dhoofiyo oo laga kaxeeyo dajintu wax weyn ma aha waxa mushkiladu ay tahay dadkan umusha jiran cudurradu hayo dhiikar ku hayo sokortu hayso cudurrada badan hayso kulayl ku hayo biyo maahe cuntadu ina waxba aad ugu qabanaynin waxa loo baahiyaa dadkan in la raro in wax loo qabto in jiscin la siiyo in goboladoodii lagu celiyo Soomaaliya oo dhan baa u soo jeedinaya waxaan u soo jeedinayaa dadka dibadda jira oo Soomaalida ah dadka walaalaha aydeen sidaan ay u tabaalaysan yihiin halka dollar waan anfaqayaa halka dollar labada dollar kunka shilin oo Soomaali baan anfaqaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa uu yimid waqtigan oo kale barqo qabaa'isha maaragta carabta dad kamida oo xufaatun quraatun kabala oo qaawan oo dhar maaragta suufo googo'an sita nabigu wuxuu ku yiri maadinkii bilaal dadka iskugu yeedho aadan dadkii baa la iskugu yeedhay halkii baa la iskugu yimid nabigu wajigiisu waa torsoomay fatamacara wajhu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam dadkii uu la hadlay wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waa ninku dirham ha bixiyo waa ninku diinaar ha bixiyo waa ninku mara ha bixiyo waa ninku hal timir ha bixiyo waa ninku ha bixiyo bur nabigu sallallahu alayhi wasallam khudbadii dadkii wax badan bay soo ururiyeen nin baa wuxuu keenay kiish oo qaadi kari la yahay oo lacag ah oo isugu jira diinaar iyo dahab oo meesha keenay kolkuu kiishkii arkay oo arintiina la soo buuxiyay nabigu waa farxay sallallahu alayhi wasallam wajigiisu waa isbedelay oo wuxuu yiri ummadani waa ummad iska naxaysa waa ummad istixgelinaysa waa ummad isu dubnaxaysa maanta waxaan iga rabnaa dadka dibadda jooga dadka gudaha ku jira meel aad joogtaanba dadka inay u soo gargaartaan wallaahi billaah waxaanu arkay saaka oo si fiican ugu soo dhax wareegay dadku siday u rafaadsan yihiin iyo dhibta haysa
iyo kulaylka haya maxaan qabi lahaa haween waaweyn iyo rag hadday yihiin waa carruur yaryaroo hadda dhalatay waa carruur la nuujinayo waa carruur jiran waa carruur Soomaaliya waa dad soo rafaaday waa dad tabaalaysan dadkaas waxay naga rabaan gargaar dadkaas waxay naga rabaan inaan barbar qabanno barbar joogsanno dadka Boosaaso jooga Boosaaso waxba yaala wuxuunbaa tijaarada Allah dadkaas horeyna waxbaad u qabateen waxaan inaga rabnaa dadkan inaad maaragtay u gargaartaan oo waliba soo booqataan oo aragtaan xaaladdu halkay ka dagayso